بسم الله وقلنكي دمبي قلبتا يا حبطو هذا ماشي على الإسلام مريو حبطة وقو هذا waxay ka socotaa waa jiidii hore ruux xusho iyo dhabada airportka xageedii halkaas dagaal aad u qaraar xoogan baa ka socda ciidamadii SNM jabhada argixisana aad baa loogu jabiyay ciidamada xaqu-dirka SSC iyo muxuu ahaa hil walaal harti ayaa aad muxuu ahaa nimanka maanta dhabaha ku dhuftay ciidanka Cumar Maxamuud ciidanka qiyaadeed oo halka degan iyagu waa ragga hadda marinaya airportka nimankaas si dhaafinaya dabadii gurmadku mari jira waa xiran tahay oo waxa weeye halkaas intay airportka ka soo koraan ee laamiga hay'adii halka kale kaga dhici jireen boodadii xagga maanta waa la xiray waxa weeye lagu kala tago wadankii lagu kala bax waxa weeye waa og baan ka shaahanaa hadii Allah uu dilayno meel ka sokaysa shaaka cabimayno meel ka sokaysa marka insha Allah ciidamada xaq-dirarka iyo hil walaal iyo SSC insha Allah waa guuleysanayaan barti ugu wanaagsanad bayna taala haddana waxaan ku wajahanahay goobta ay muxuu ahaa xabaduhu ugu culus ay ka dhacayaan halkan waxaan idigu soo gudbin doonaa maxaabiista la kala qabsaday iyaga xaqooda laga qabsaday baabuurta laga furtay iyo kuwa laga gubayba jabka xun ee maanta soo gaaray nimanka waa arki doontaa insha Allah iyadoo video live aan idin soo gudbin doonaa hadii Allah uu daleedmo iyadoo live aan idin soo gudbin doonaa aaga la isku dagaalayana si toos ah iyo meelaha la baacsanayo iyo meelaha si ordayaan si official ah idin soo gudbin doonaa insha Allah si official marka guul baa ka dhacday cid dambe oo saarnaanaysa cid dambe oo leh muxuu ahaa ii sheeg halkan bay ka baxday ma jirto lagu kala bax laascaanood lagu kala bax haddaan dhankii shishe ee dhamasaar iyo tuula samakaab aan xogay iyo information iyadana aan idiga siiyo waxa weeye halka laftigeedii waa lagu kala calaf qaaday oo nimankaas 7 maxaabiis laga qabsaday 7daas ba ay yihiin jamhadda argixisada SNM 7daana ciidanka xaq-dirarka ayaa gacanta ku haya baabuur waa laga gubay kuwana waa laga haystaa goobihii la isku dagaalay saaka iyo goobihii iyagu ay ku jireen hadda waxa si toos ah gacanta ugu haya ciidamada xaq-dirarka SSC ee hil walaal marka maanta ugu wanaagsan tahay waxa weeye laascaanood maanta iyo bari iyo saadambe banaan bay taagan waxa weeye oogna waa la is dhaafaya burcana waa ka shaahi doona hadii Allah uu dilaymo insha Allah saacado kadib hadii Allah uu dilaymo xog dhamaystiran oo tafatiran baan idin la soo socodsiinaa aad baad u mahadsantihiin Cabduul Cawl Cami ku xidhnaada halka nagala socda waa idin salaamaya xabadaha ugu adag meesha ka dhacayaan hadda iyo sida boardku kacayo hadda ay tusnaa waa halka kuwa boardka kacayo marka xabadu si adag bay u socotaa waliba xawli bay uga socotaa aaga hadda aanu marayno waana maqlaysaan dhawaqeeda iyo sida u dhacaysa aad baad u mahadsantihiin